madaxweynaha maamulka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. waa socdaalkiisii ugu horeysay oo ku tagay magaaladaasi tan iyo markii uu qabsaday xafiiska madaxtinimada ee maamulka Puntland. boqolaal shacab ayaa ku soo dhaweeyay magaaladaasi oo ay kamid ahaayeen madaxda sarsare ee magaalada Gaalkacyo waxana uu ka jaray xariga mashaariic dhinaca horumarinta la xiriira. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya. wafdiga madaxweynaha ayaa inta aanay gaarin Gaalkacyo waxa ay ku soo hakadeen magaalada lagu magacaabo Heemo oo halkaasi madaxweynaha salaan ugu tagay qaar kamid ah waxgaradka deegaanka uu kamid yahay Sheekh Maxamed Cabdullaahi Baardheere. sidoo kale wafdiga madaxweynaha ayaa ku soo hakaday magaalada Daarusalaam oo ay shacab ballaaran ay ku soo dhaweeyeen waxana madaxweynaha uu kalmad mahadcelin u jeediyay dadkii halkaasi ku soo dhaweeyay isagoo kula dardaarmay in laga shaqeeyo horumarinta iyo xasilinta guud ahaanba Puntland iyo ammaanka deegaanada ay ku nool yihiin. madaxweyne Dani iyo wafdigiisa ayaa ugu dambeyntii gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug duleedka magaalada ayaa waxa ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Mudug ee kan magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta odayaasha nabadoono siyaasiyiin iyo waxgarad qaar kamid ah ka socda ururada bulshada iyo qaar kamid ah bulshada deegaanka. ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xariga ka jaray qasriga madaxtooyada ee Puntland ee ku yaala magaalada Gaalkacyo waxana uu madaxweynuhu tilmaamay in si tayala loo dhisay madaxtooyadaasi isagoo mahad ballaaran u jeediyay madaxweynaha xilka kaga horeeyay ee Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. waxaana soo dhaweyntan oo xilka iska saartay oo u horeeyaan guddoonka gobolka iyo degmada iyo cuqaasha dhalinyarada iyo bahweynta kale halkan joogta. waxaan runtii rajaynayaa muddada aan halka joogno inaan wax badan kala bogan doono dhinacyo badan oo dhinacyada dawladda ana waxyaabo badan isweydaarsan doono dalka horumarkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisana aan ka wada sheekaysan doono. waxaan maanta halka ku faraxsanahay inaan xariga ka jarno madaxtooyadan cusub. waxaan marka ugu horeysa uga mahad celinayaa Dr. Cabdiweli Cali Gaas oo runtii aasaaskeedii iyo hirgelinteedii lahaa. sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa shirkaddii dhistay oo runtii shaqo fiican oo qurxoon oo ilaalisay bilicdii madaxtooyada iyo taariikhdii deegaanka labadaba ilaalisay bay'adii isku dheelitirtay design-keeda aad baan iyagana uga mahad celinayaa. waxaan kaloo ka mahad celinayaa cid kasta oo gacan ka geysatay ilaalinteedii dhisideedii iyo xifdinteedii iyo goobta ay ku taallo oo runtii goob taariikhi ah in loo gartay iyadana waa munaasabad runtii in laga mahad celiyo u baahan. waxaan rajaynayaa muddada aan wada joogno inaan si waafiya isaga waraysan doonno sidii dalkeenna uu u noqon lahaa dal xasiloon oo deggan oo dadku nolol qanaacale ay ku nool yihiin. dadka aan jeclayn